سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. runtii anuu caaw waxba kuma soo talagelin, laakiin markii la yidhi kitaab qur'aan oo la fasiray ayaa laga warramayaa. waxaans idhi waa rigelka xooji, waa ka maqnaanin qur-aankaasi la tafsiiray. waana meel buug ama kitaab lagu daahfurayo soomaaliyeed halkii ugu horreysay aan imaado. qoraaga aad baan ugu mahadnaqayaa, si aada u weyn. waxaanan rajaynayaa inuu buuggiisu wax badan uu faa'iideeyo. afaf in laysku tarjumaa wax fudud maaha. dee waxaan filayaa sheekh dalmar oo takhasuskiisa ay tahay baa fadhiyo ay ahayd inuu ka hadlo, iyo ragaf soomaaliya iga badiyo badan. anuu qoraana ma yaha, afafkana waa layga badiyaa. kitaabka qur-aana marka ay sifaynayaan waxay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay, waa buugga dunida loogu akhris badan yay, looguna faham yaryay bay yidhaahdaan. marka la eego buugga ugu daabacad badani waa injiilka bay yidhaahdaan. waa qolada kristanka buuggooda ugu daabacad badan oo dunida ugu tiro badan oo la daabaca. lakiin waxay dhahdaan akhris marka la eego, dee adigu muslimka tukanayo in dunida qiyaasa mise faatixa maalintii akhriya. waxay dhahdeen waa buugga loogu akhris badan yihi, laakiin haddana loogu aqoonta daran yahay marka la eego. oo haddaynu dadka soomaaliyeed weydiinno inta faatixa akhrida imisa faatixada macnaheeda taqaana, dee waxaynu ka garan karnaa nisbada akhrida qur-aanka iyo nisbada fahamtaa inta ay isu jiraan. kitaabkani markaa wuxuu soo dhowaynayaa dad badan oo aan afka carbeed aqoonin ama aan hore loogu tafsiirin. aniga caawa igu horraysa xataa akhriskiisa ama eegashadiisa, laakiin haddii intaasoo culamo uu sheekhu sheegay isa soo mariyeen, waa rag aan kalsooni badan ku qabo. waxaan rajaynayaa inuu soo dhowayn doono kitaabkan iyo fahamkiisa. wuxuu kaloo soo dhowayn doonaa af carabiga barashadiisa, waayo qur-aanku af carabu ku qoran yahay. af carabigu horta waa luqada dunida ugu badan. mufradaadka erayada af carabigu marka laysu geeyo dictionaryadiisa iyo erayadiisa waxay yidhaahdaan waa 12.3 million words. waa 12 milyan iyo 300,000 iyo jajab. luqada ugu dhowo kale bay yidhahdeen waa luqada ingiriisiga, waa 160,000 qiyaas intay isu jiraan. 25 jeer buu ka badan yahay. jarmal baa ku xigo, waa 150. faransiiska jarmalku waa 160 baan filaya. ingiriisku wax yar buu ka badanya. waxaan filaya mid inuu 160 iyo midna 150 yahay, midina 130 uu yahay. waa say isugu xigxigaan ingiriisiga iyo faransiiska iyo jarmalka. afka intaa leeg waxay dhahdeen beri horuu dhiman lahaa haddii aanu qur-aanku ku qorayn. qur-aankaa haya inuu af nool noqdo oo weli dunidu ay sidiisa u isticmaasho. afafka dunidu siday u badan yihiin ama luqaadka reer galbeedkaanu dhegannaa waa muratab bay idhaahdaan. waa af isdabayaal u qoran. maalan ingiriisiga subject baad ku bilowdaa, verb baad sheegtaa, dabeetana object iyo predicate wixii kale ka dambeeyey baad sheegtaa. waa systemkaasi oo quruu ku iman karaa. af carabigu waxay yidhaahdeen waa luqa mucraba. godniinkan iyo hoos dhigana khaatiga ka taagantiin cilmi aad u ballaadhan bay sidaan. walidaalik iminka haddaynu rabno inu idhaahno muxamed baa cali garaacay, daraba muxamadun caliyan, saa waa u dhigi karnaa. waxaynu kaloo odhan karnaa muxamadun daraba caliyan,
waxaynu kaloo u dhigi karnaa caliyan daraba muxamed erayga meeshaynu doonnaa baynu geyn karnaa bimujarad inuu calaamad yaroo godniin midna wato midna calaamad yaroo kordhiga wato halkuu doono geynaya erayga kan laakiin saddexda jumlo midna mid la macno ma aha xagga asalka waa iskaga macne oo waa moxamed baa cali garaacay laakiin haddii bayaanka luqada carbeed iyo macaanideeda loo eego saddexda jumlo mid waliba macno dheeraado aan ka kala sidin buu sidaa afka caynkaasa ee 12 milyan iyo dheeraada ee isu rogroggiisu sidaa yahay inaad af kale ku sargoysaa mustaxiilaadkay ku jirtaa bay idhaahdaan waa wax aad u adag bay idhaahdaan afka caynkaasiga haddana kitaabkii afkaa ugu sarreeyey ugu mucjiska ahaa inaad ku tijaabiso af kale inaad ku sii tarjuntaa ninka farsamadaa u dhaqaaqay dhibta haysatun baanan uu qiyaas karaya yacnii ninka isku dayey waayo ninka mufasirka culimmada agteeda fadhidee mufasiriinta ahay dee aayadda markay sheegaan xagga kaga kaalay oo xagga kaga kaalay oo in af carabiya ku dar oo af ingiriisi ku dar gabay ku dar waxbuu isu geeyaa ilaa uu ku fahamsiiyo laakiin qoraagu dee intaa wada heli maayo qoraagu waxaa la rabaa dhowr santarisoo yaryar inuu macnaha tirada badan lee wadaadka tafsiiraya uu maantoo dhan waday inuu kuugu soo dhoweeyo ku koobo idan ninka kitaabkan qoray waxaan u arkaa daki maaha qura waa nin hardware kara succeskuna hardwareku ku jiraa bay idhaahdaan dakaa qura maaha waa qofku intuu howlkariyahee waxa kanuu tijaabiyo dee bayjajkaa yar wuxuu inoo sheegay 2015 laga soo bilaabo iyo haddoo maxay 2020 caawa waxaynu joognaa maxay 2021 intaasoo sannadood buu intaas soo waday inuu taxriiriyo oo isku dayo oo ilaaliyo dee waa ilaahay kitaabkiisiiyo inaanu dhukdhuk kaga soo bixin weliba afka uu ku qoray waa afaan bislayn markay qoraalka timaado oo waayo waxaynu qoraal haysanoo dhamme waa waxoogaa gabyaaya ama sugaanuun wax ku tacalluqa ama riwaayadda ama heesdha ama gabaydha ama sheekadhe waa adab wax ku tacalluqa af cilmi iyo cilmi qoray maaha ninka isku daya markaa inuu afkaa cilmi ku qoraa hawl dheeraadoo kalea sii haysata cabdibashiir waxaan leeyahay ilaahay ha ka aqbalo subxaana wa tacaala isku daya aad samaysay ha kuuguna gargaaro waxaana rajaynayaa kan ilaahay jannada ku geeyo uu ku dadaalay haddii alla yidhaaho subxaana wa tacaala waana waxtar weyn qofkii rabay inuu qur-aan barto xataa qofkii rabay inuu af carabi barto waayo waxay idhahdaan qur-aanku luqada carbeeda nool maanta bersentka ugu badani waxay idhahdaan waa luqada qur-aanka saa daraaddeed haddii aad qur-aanka macnihiisa af soomaali ku fahamto fakabilariga ugu badanee luqada carbeed ee hadda mustacmal dunida ka abaad baratay weeyaan marka xaggaa marka laga eegana af carabi nin bartay baati oo fakabilari aad u tiro badan ayaa ku soo kordhay aqoontaada luqadaaduna de waxay ku salaysantahy intaad fakaabulari ka taqaano luqadaasi bay ku salaysantah idan kani mar waa ilaahay kitaabkiisiio aynu fahmayno marna waa af carabiga laftiisiio aynu fahmayno marna hadda waa af soomaaligeeniyo laynoo badhax tirayo sidii ugu fududayd inaynu u garanno aynu u fahmayno walidaalik anigu waxaa laga yaabaa dadka afna ku fiican mayhi laakiin dadka jacburka ku fiican baan ahay in carabi ingiriisi soomaali la isku walaaqo carruurtayda yaryar markaan sidhaahdo maal dhaweyd bay kuwa yarra yimaadeen waxaan ku idhi jisca maalidiin sharxaya kaalaya markaa 2-3 wadaba way safgara weynaa ama erey soomaaliyeed oo weynoo horaan sheega ama erey kaloo carabiyaan sheegaad laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu wax badan iga caawin doono inaanu aniga iyo kuwa yaryar isafgaran karno oo bal aan isku dayi karo inaan suwarka qur-aan ee ay malcaamadda ka soo dhigtaan macnaha guud at least inaan u fasiri doono ama aan ku kaalmayn doono anu markaasaan idiin sheegay kumaan talagelin caawa inaan hadal badan idhaahdo waxaan ku talagalay inaan golaha xoojiyo oo higilkaasi aan ka qayb qaato oo kitaabkani sidii u noqon lahaa kitaab midho dhala biidn illaahi tacaala
inaan waxaan ka geysan kara ka geysto. marka waxaan ku soo koobayaa sheekha qorayna iminka dee abwaanka annaga uu nagala sarreeya xagga sheekhnimadaaan u kaxaynaynahay. waa laga yaabaa inay idinku xagga abwaannimada jeceshiin, anugu xagga kalaama sii kaxaynayaa sheekh cabdibashiirna in alla ka aqbalo subxaanahu wa tacaala. luqadeenniina aynu noqonno dad bartay. afka soomaaliyeed wuu sii dhimanayaa, innagaana dilayna. ma aha in cidi ku soo duushay oo innagaa isticmaali weynay. dhimashadiisa waxaa kaaga filan dee bal waxaad akhridaa uun xayaysiiska magaalada hargeysa ku qoran ee dadka caamada ee soomaaliyeed loo xayaysiinayo. dhammaantood haddaanan odhan 90% waa af ingiriisi. waxaad moodaa in somaliland ingiriisku degan yahay. waxaanay ahayd inaynu afkeenna ku qoranno. waxay ahayd wax badan aynu isu sheegayno inaynu afkeenna isticmaalo. af ingiriisi baa inala noqday wax weyn oo aada u weyn. markaasaynu afkeennii liidnay oo dillay. dee carabina isaga hadalkiisaba iska dah. hadda dastoorka waddankana ingiriisigu kuma yaallo. somaliland dastoorkeeda maxaa ku qoran? luqa luula inay maxay tahay soomaaliya, luqada labaadna inay tahay carabi. haddana dawladdu waxay wax ku soo saartaa in badan oo ka midi af ingiriis ay wax ku qortaa. dadkuna af ingiriisu wax ku qoraa. waraqaa laysu gudbinaya af ingiriisa lagu qoraa. waxaana dastoorka ku qoran war af soomaali wax lagu qoro, af carabi wax lagu qoro. waxaynu awoodi weynay dukaamadeenna boodhka ku qoran inaynu ka dhigno soomaali. marka luqad dadkii lahaa aasayaan sida kor ugu soo kacdaa waa adagti. laakiin haddii qur-aanka lagu fasiro in shaa allah waxaan isleeyahay wuxuunbaa baaqi ka noqon. waayo kitaabka qur-aani waa kitaab baaqiya ilaa yowmi alqiyaama. ilaahay ballan qaaday inuu hadhayo. wixii lagu qorana waxaan isleeyahay wuxuunbaa ka hadhi doona. marka waxaabaan isleeyahay qaab loo nooleeyo af soomaaliga waxaa ka mid ah kitaabkan aynu caawa hayno, oo isaga laftiisu wuxuu ka qayb qaadan doonaa inuu af soomaaligu dib uu u soo noolaado ama uu joogo oo dib uu soo barbaaro. idinacaa waxaan idinkula talinayaa afkiinna hooye inaad dib ugu noqotaan. ardadii hore soomaaliyeed waxaa caado ahaan jirtay 3 bilooda fasaxa in baadiye la qabto. oo nin kastoo ama da'dayda ama da'addii ku dhowaydahaa iskuulka marka laga fasaxo baadiya bil 2 bilood la soo joogi jiray. taasi waxay xoojin jirtay dadkan inay dhaqankoodii iyo af soomaaligoodii ila baadiyuu yaallayeen inay si fiican u soo bartaan. iminka baadiyihiina wuu baaba'ay. dee idinna waa ka xaragootaan baadiyaa soo maaha. inaad baadiye qabataanba wax foolxun la idinla muuqataa. hargeysana af laguma hayo, wuu baaba'ay. aad buu usii dhimanayaa. waxaanan isleeyahay af soomaaligu hadduu dhinto xataa hadhow waxa idin garan waayo qur-aanka cid idin fasirta. ilaa af kalena umaynan tallaabin, keeniina waynu aasaynaay. marka waxaan isleeyahay kitaabkani af carabigii wuu noolayn, af soomaalina wuu noolayn, qur-aanka macnihiisiina wuu soo dhoweyn. intaaba hadduu inoo wada qabanayo inuu meel weyn inoo degi doono baan rajaynayaa. ilaahina subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa kii uu rabbi aqbalo ee dadku ay bartaan ee lagu badhaadho inuu ka yeelo. sala allahu calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.